waxaa magaalada Mandera lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii looga dhabeyn lahaa heshiis ay horay u galeen beelaha Garre iyo Dagoodiye ee dega ismaamulka Mandera. Kulanka ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka ismaamulka Mandera Maxamed Aadan Khaliif, culimo u diin iyo odayaasha labada beelood. intii uu kulanka socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo hirgelin lahaa heshiis 2020 ay galeen labada beel oo uu garwadeen ka ahaa xilligaasi Sheekh Umal, kaasi oo ahaa bixinta magta dad ku dhintay dagaal beeleedyo hore. Waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha kulanka ka soo qayb galay oo warbaahinta la hadlay. Aan ka hadalnay dhacdooyin badan oo ka dhinac jiray kama dilka camal ama accident wax gaari ku dhintay camal. arrimihii maanta meeshan ku hadalnay runtii arrimihii kulli waan ku heshiinay, taariikh baan u dhiganay, wixii kulli dhiigina waan ku heshiinay, sidii sharci islaamka ku heshiinay kulli waxaan ku heshiinay muddo aan u qabanay biidnillaahi kariim. waxaan rajaynaa muddo gaaban dhammaad sanadkan inaan dhiig kulli iska bixino ayaan ku heshiinay. magaceyguna waa Goosmar Raqiso. waxaa meesha Mandera shir saddex geesood aan ku dhignay shir u dhaxeeyay beesha Garre iyo Dagoodiye. arrimo badan oo khilaafaadka ku saabsan, dhiig badan dhaxdooda jira, dhiig la kala qaadanin oo labada cid u dhaxeeyo oo Garrena Dagoodiye ka rabaan, Dagoodiyena Garre ka rabaan, oo muddo badan soo jijiitamayaan iskugu maalimaanta oo aan ka cabsanay in infection ka dhasho oo dhib kale laga sii qaado. anagoo ka cabsanay ayaa shir degdeg ah oo labadan cid aan iskugu keenay. Garre iyo Dagoodiye waxaan ka soo yeernay Banis iyo Ramo waa lagu soo yeeray ilaa Mandera. shiraa meeshaan ku qabsanay. shirki marka maanta 4 qodob la isku maqlay. saddex dhiig waxa laga rabaa cid Garra yar oo lagu dilay Malkamari oo Jimcaale ah 1,500,000 Garre waa ogolaaday inay bixiyaan sanadka dhamaadkiisa taariikh 30 bishii 12aad. shilkan waxa way gaari oo yar ku dilay Khalaaliyo 1,200,000 iyagana waa ogolaadeen isla taariikhdaas oo December taariikh 30 inay bixiyaan. tan kale cid Dagoodiyena waa ogolaatay halkoo dhiig oo Malkaroga ku haray oo laga rabay oo 4,600,000 ah iyagana waa ogolaadeen inay keenaan bishan December dhamaadkeeda inay keenaan iyagana waa ogolaadeen. marka dhiigii kalena waa gaari accident oo dad ku dilay oo qaarna lacagta dhinacna waa laga bixin laakiin waxna hereen oo cid Garre laga rabay iyagana waa la ogolaaday. waxaana la bixinaa taariikh 30 bisha afraad sanadka cusub soo socda. marka midka Malkamari waxaa la bixinayaa January ma isku ogolaadeen. marka nabada lagu dhameystay afjarnay waxaana dhex yeelay dhiigag saddex dhiig adri abehe laga rabay, annagana hal dhiigaan laga rabay. halkaayni dhiig inaan bixinna ayaan ku heshiinay bisha 12aad 30keeda inaan bixinaan ku heshiinay. raabahayna saddex dhiigaan ka rabnay, ayagana muddo ay u qabsadeen sidaas oo kalooto muddooyin aan isu fogeen. saasaan ku soo gabagabeyn saddex dhiigna ayagana inay bixiyaan si nabadgelyo ku bixiyaan, annagana aan sidaas ku bixin ayaan ku heshiinay. dhanka kale barasaabka Mandera Maxamed Aadan Khaliif ayaa u mahadceliyay odayaasha sidoo kalena ku booriyay in nabadda laga shaqeeyo. markaan ka soo gudubno haddana waxaa iga faraxay markaan maqlay maanta way fadhiisateen go'aana la gaaray waa la heshiiyey. markaan maqlana waxaan dhahay laazim inaan imaado oo aan idin dhahay magaalada tiin waana sharafteen. codskaygaan soo diray ogaho culeys ahaan ay qaadateen, shaqo fiican aad qabateen, khayr allah idin siiyo. markani waxaan idin sheegi rabaa gabanagiin haddaan nahay arrintan oo nabad ah waxaanan ku bedelan karno ma jirto. wax kasta meel kasta qarash kasta inaan ku galno waa inaan horiyaan soo wadno. maxaa sababay waan arag labadiiba waan arag nabad la'aanna waan soo marnay, nabadina waan soo marnay soo ma doonayno inaan ku noqono meesha hore aan ka soo tagnay. alxamdulilah Mandera meel aad oo Mandera waa la amaana. Mandera waa meel fiican waay. electionkii la soo maray waa la socotay sidii intuu election jiray in kale lama garanayaba. nin walba nin rabo soo doortay campaign sidii nabad aan soo sameynay. waxay dhib ma jirin electionka si nabad aan ku rinay. markii doorasho dhacdana sidii nabad aan ka soo gudubnay. insha Allah waxaan rabnaa inaan isla shaqeyno odayaasha daatihiin iyo culimadii iyo inta peace iyo government national iyo county government ba
inshallah inaan dadaalno oo aan sii adkayno sidii arrimihii haddan ka hadlay oo waxaan hadda ka hadlayno waxaa waaye waa dadka dhintay allahu raxma iyo dhiigoodi dadka dhibkan geysadana meesha ma joogaan soo maa dadka dilay bannaankaas jira inuu shilin bixi doonina baa laga yaabaa waa nasiib darro laakiin waa laazim inaan waajibna saaran wahay dembigii ay galeen inaan ummadda kale aan ku dhaafin oo dhibka kale inay ka imaadeen aan ka baadbaadin soo maaha cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta Star ismaamulka Mandera.